aayadda markay soo degtay waquuduha an-naas wal hijara markuu nabigu aayadda ku akhriyay in xabashiga nabiga hor fadhiyay majliskiisa lilma ayuu sii daadiyay uu ooyay oo hintiisiibuu saysan kari waayay ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku ooyaya waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa adoon reer xabashaa oo ahlul khayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayay buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة إلهي بالع شرفت إذا وين إذا عرشك يقصر أيا كدارتي الضومها يقا كمدا الدويدة دوشي إذا ما أويو عبصدي إذا لما أويو هدي اللي هلسي مالك اللقاتيه اللقاويه قيامها أيا نقص الكسبة ديابا إلهي دي لحدا السنو ayuu ku dhamaysanaya taacada ilaahay iyo cabsidiisa iyo khawf iyo khashiyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigay oo qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore qulubtoodu markuu iftiinku galay nuur al-iimaan iyo nuur al-ilmi iyo nuur al-qur'aan iyo nuur al-hidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyay aakhiradii baa u cadaatay quraankay fahmeen waxyigii bay fahmeen Umar iyo Abu Bakar markuu nabigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen Abu Bakar baa ku yidhi Umarow ummu ayman inooge hambuuqane sidii nabiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar ali markay aragtay Abu Bakar iyo Umar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu Umar Abu Bakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nabiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nabiga waad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nabi maxamed allah agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanayay baa naga go'ay bay tidhi cajiib bal ummaddu sidii qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhagayso oo faham gabadha walaasheeda muslimaday zamanka dadku sidii qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkayso dhan beene wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaanay qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin taacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة ما هليس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يجا عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يجا عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يجا عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يا سنة لكن محل لقوا بدادية وحل لقوا بدادية هل كان لقى قادنيا هل كان لقى قادنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا
faxfad linafsika an takuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkiibaa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso